madaxweynaha Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeed ayaa safar dhanka dhulka ay ku tagay degmada Kalabeed ee gobolka Sool waxayna laascaanood kaga beegan tahay dhanka koonfureed 35 kiiloomitir waana markii ugu horeysay madaxweynuhu booqdo magaalada Kalabeed tan iyo intii loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee maamulka Khaatumo boqolaal dadweyne ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxweyne Galeed sidoo kale waxaa qayb ka ahaa soo dhaweyntiisa odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool soo dhaweynta kadib madaxweyne Galeed waxaa loo soo gudbiyay gudaha degmada Kalabeed waxaana la arkayay madaxweyne Galeed oo gacan qaadaya bulshada reer Kalabeed inkastoo uusan shaacin madaxweyne Galeed safarkiisa haddana waxa uu qayb ka ahaa safarkani socdaal dhowr ah oo maalmihii u dambeeyay madaxweyne Galeed uu ku maraayay qaar ka mid ah magaalooyinka iyo degmooyinka gobolada Sool iyo Buuhoodle wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynuhu joogi doono isla markaasina ku hakan doono degmada Kalabeed muddo dhowr maalmood raadeeyay telefishinka RTN